sida ogeed waxaan leenahay haweeneyda muslimka guriga kani si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray. guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curban atraaba, tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba. waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha. ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo. alxayaa qayb ka midi waa madmuum, qayb ka midina waa mamduux. waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum bay leeyihiin, kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliya kuma jirto. bale quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uxilla lakum leylata siyaami rafathu ila nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. wa min aqwaali almufassiriin fi rafath waxay yidhahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yidhaahdo guriga se waa laysu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan. sidaa daraaddeed kelimatu rafath ayay culimmadu leeyihin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqadamaadkiisa looga jeedo. waxay yidhahdaan gabadh badawiyadoo reer miyiya ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhao meel bay fadhiisatay way wardid. qolaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada, labadana wadado kale fogah inaad cuscusburato oo maryaa xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen. markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay ilaahay dhan buu igu leeya aanan rabin inaad dayaco, dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leedahay yana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay. yani labaduba waa bannaan yihiin. saa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna, ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah. sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaduud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كذا جعل كبار كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدنيا تشوجي جنة قلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي تجعلني كذا ووحدة ليسة وعودة خير يونا يقول كذا kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa wallaahi inaana waxba dhadhamin inaad raalli noqoto mooyaane. haddii xataa iyada la dhibo buu nebigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raalli geliso. walidaalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yidhaahdo Maraykanka ee lee buuggan ay u bixiyeen tarjamadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen waa iska kala tageen. waxay leedahay nooc min feminist gruubyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso. waa kaasi markii dambaan waxaan fakeray bay leedoo raadiyey maxaan anigu ninkaygii u waayey reerahan jaararkay dadkanina weli xaasaskana isu qabaan. dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday. interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisani inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban aan waxba ku qabsanin. walidaalik baa waxay qortay buug ay yidhahdaan dabcaddii koowaadba 100 kun oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك باي بوغا فكرتي سودم وانت نينكو اللباح باي لهدي هدي اد اسكو سو تاغتنا وكعوني هدادن او ججبناتنا افكيساد كلا بخي باي لهدي waxa ku jira sidaradeed jajabnay isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sidaradeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibay leedahay dabeetana markaan u dhiibo wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray reerkeedu ku yaallo ka daba cabaa nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi. yani waa guri reer ku wada nool. sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayhi afka ka saaray. waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi. yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa inay muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi siduu u dhaqmay. waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray. waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayay. habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay nabi waa israaci jirnay lintanazzuh waa nabi iyo rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo 50 jira odhan anigu oday baan ahay oo dee dhalinyarada raacda islaamaha anu ma daba galama waa nabi rasuul ah oo dhowr iyo 50 jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda
socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa Madiina iyo Nabi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo 50 jira ayaa waxay leedahay biknik baan u wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka inaga waxa laga yaabaa ninku nin Soomaaliyeed bal ku dhaga gabadhaada ma jeceshay غير معقول waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay Nabi Maxamed inta saxaabadu u yimaadeen bay dhahay Ilaahay rasuulkiisiyo dadka yaad u jeceshay Aasha buu yiri nabigu Nabi Maxamed su'aala la weydiiyay dad ba yaad u jeceshay oo yiraahdo Aasha markaas ay dhahdeen ragaan u jeednaa markaasuu yidhi Abu Bakar idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxa kale oo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga tii gurigayga joogtay maraan usraacnay ama aniga iyo yaani hatta inuu yiraahdo reerkaygii ayuu afka kale warwareegaya marka aniga tii guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray Aisha waati xadiiska saxiixa ku tilmaamaysay saxiix muslim ku yaalay marka neef la qalaba nabigu wuxuu yiraahdaa Khadiija asxaabteedii hilibka wax uga dir qatay Aisha lahayd waligay gabadh kuma hinaasin haweenta dhimatay aanan isa soo gaarin sidaan ugu hinaasay bay leedahay sidoo nabigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan uu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bal asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay